deegaanka kooban maamulka degmada beledweyne taliska qaybta booliska gobolka Hiiraan dhaqaatiir caafimaad iyo madaxda qaar hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan ay ku gaareen deegaanka Farlibaax oo qiyaasii in ka badan 45 kiiloomitir uga beegan dhanka galbeed caasimadda gobolka Hiiraan ee beledweyne ayaa ku saleysnaa oo kuurgalida xaaladaha dhabta ah ee abaareed iyo midda caafimaad ee ka jirta Farlibaax iyo deegaanada galbeed ee gobolka taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Cornel Isaaq Ali Cabdulle iyo gudoomiye xigeenka ammaanka iyo siyaasadda maamulka degmada beledweyne Awaale Isaaq ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay ujeedka safarkooda waxaan ugu soconaa Soomaalidu waxay tiraahdaa mataana abaarad midii mamana bax dhulka Soomaaliyeed dhamaantiis ilaa dhulka NFD ilaa dhulka Djibouti ilaa iyo muxuu yiraahdo kinka shanaad ilaa Soomaaliyeed meel maanta abaarta ka jiro ma jirto Soomaaliya meel alla meeshii degan tahay abaara ka jirta marka hay'adaha gargaarka ah ama dadka samafalayaasha ah ama dawladaha deeqda bixiya meeshii wax loogu sheegay ayay aadaan saasan waxaan u leeyahay meeshii qeyladaanteeda badato ayaa waxa la leeyahay waxa la geeyay waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha gargaarka ummadda Soomaaliyeed ama dadka deegaanka ee dhibaataysan ee abaaraha iyo cudurrada iyo soombiyoodka uu ka jiro in ay u gargaaraan yimaadaan arkaan muxuu ahaa wixii tabartooda ahna ay la soo gaaraan intii arrin aad iyo aad naxdin u leh hadda maanta waxaan maqlaynaa ilaa iyo 12 kiis ilaa 15 kiis oo soombiyood ah oo maanta kaliya ah in muxuu soo dhacay magaalada Soomaalida waxay ku maadeen riisi mana muu waxa laga yaabaa xogaa in anaga Farlibaax xagees ugu badnayn oo aan baladin u badnayn hadana dhibaatada meeshan ka jirto iyo abaarta maanta wadanka Soomaaliya ka jirto wax la soo sheegaa ma ahan anaga qorshahayna wuxuu ahaa saaki bahda caafimaadka ah oo qoybeeda kala duwan arrimaha dhowr qodob ka kala socoto oo soo gaartay degmada Farlibaax inuu wadankii anaga dawladda wakiilka ah ee wadanka inuu amni yahay maanta loo gargaari karo qof kasta oo wax haysto ama maxsan oo Ilaahay wax siiyay ama dawlad ah ama hay'ad wax bixinay inay wadanka tay karo nabadgelyo abaarta ka jirta deegaanada galbeed ayaa mid halis ah oo saameysay dadka iyo dunyada waxaana kula kulmay banaanka hore ee deegaanka Farlibaax caruur iyo haween ku howlan qodista xididada cawska si loogu qoodiyo xoolaha sida ariga iyo lada abaarta jirta awgeed igana sheekeeyay dhibaatooyinka ay ku qabaan agacayda casaba Cabdullaahi Fiido kordariira kordo waxa cuntada cawska la guri jiray baridiisi waay dhulka baa laga qodaa waxa la siiyaa dhulka laga qodaa waxa la siiyaa xoolaha ariga looda dameeraha alagu masruufa marka waa cawsaan ugu dhigayna cawsaan ugu dhigayna maxaa keenay abaaraha dhulka ka batay iyo rafaadka magacaada abaarta dadkii iyo dunyada ilaa 3 sano wax fiican lama helin sanadana ma la arkinba marka saas baa wax walba ay u liidan yihiin marka saas baan xoolihii nolol ugu dadayeynaa Madaaq Ibrahim Maxamed waxaan gacan ku haynaa waa kurdo waa cawskii wadamaha keenay xidkiisi adduunyada idraan ku noolayna dhulka la soo qodo xoolo u noolaya waxka xoolo hada nolol ma rijinayaan naftu bisaar u cilna magacayga Quraan mid buurmaa meesha aan ku suganahay degmada Farlibaax abaarahan iyo dhibkan iyo gaajadan baan hays dadka islaamka wax noo qaban kara sawir maalin walba wax nagu taramay wax noo qabto waa u baahanahay xoolihii ari iyo la baan lahayn arigii lidin way dhamaadeen beeri tacbin jirnay waa tan saaba hadda xididii u qodow hayna dhinaca kale odayada dhaqanka iyo mas'uuliyiinta Farlibaax oo soo dhaweeyay waqtigan gaaray ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka jira ayagoona dalbaday in gurmad bini'aadinimo degdeg ah la soo gaaro waxaan tagin dhulka qodaa dadna xoolay ka celinayeen dad dhulka qodaan kuwa xoolay ka celinayeen dad iyo duunya hada duunya waa ilaalinaya dadka dhibaato hayso waxaan codsanaynaa madaxdiina sharafta oo hay'ad ka socoto oo ciidamada qalabkiisa ka socoto oo taliyaha booliska madaxda u yahay in loo qayliyo insha Allah ta'ala adduunka loo qayliyo islaam ilaahi iyo cidii hay'ad gargaar bixinayso dhamaantood inay Farlibaax wax loo soo qabto meesha suuqa hadaad marto erga iska wadiyaa inta laga hawdhi xoolo tageen wax iska wada anada oo arkaysa ayan naftu jiro kada day suuqaas waxyaalo waa waxaan wali arkay lama soo marin
سيادة جرع معها كل أنت نور أنت جرع خالد محمد إسماعيل كعسى تلفزيون كعالمي كصومال نيوز بلدوينة